wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland Dr. Cabdi Daahir Cali ayaa maanta xadhiga ka jiray dhismo cusub oo lagu kordhiyay wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Daadmareed. Munaasabad ballaaran oo loo sameeyay xadhiga jarista dhismaha cusub ayaa ugu horreynba waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Daadmareed Jamaal Xuseen Hurre oo soo dhaweeyay dhismaha cusub ee loo dhisay wasaaradda xanaanada xoolaha. mudane wasiir aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad xadhiga ka jirtid maanta xaruntii xanaanada xoolaha ee gobolka Daadmareed iyada oo ay ruga yar oo kale ay jiraan haddana waxay qayb ka tahay xaruntani 15 xarumood oo laga dhisay wadanka taas oo ka tirjumaysa ballanqaadyadii xukuumaddu ay ugu ballanqaaday in ay xanaanada xoolaha la xanaaneeyo laga daaweeyo. waxa isna dhankiisa ka hadlay munaasabadan duqa degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse. wasaaradda xanaanada xoolaha runtii mudane wasiir shacabka reer Oodweyne sidii ugu diyaarkiin una jecel yihiin furitaanka wasaaradda xanaanada xoolaha runtii noo fur. wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland Dr. Cabdi Daahir Cali oo soo afmaray munaasabadan ayaa xadhiga ka jiray dhismahan cusub ballan qaadayna inay wasaaraddiisu keeni doonto gaadiid u adeega wasaaradda xanaanada xoolaha iyo daawooyin loogu talagalay in lagu daaweeyo xoolaha. shacabweynaha gobolka Daadmareed waanu mahad celinaa soo dhaweynta in soo dhaweeyeen ilaa shalayto waxa kale oo farxada inaan furno maanta xaruntii xanaanada xoolaha ee degmada Oodweyne iyo gobolka Daadmareed. إن شاء الله تعالى وحن رجينا إن نكون رجينا حرونتن جيد نوجو رجينا التيمة وهالكو هالكيس كور لها هالكن عن وقدرنا أو قلبيسن حرون وقدر وجو مدة مان والله ضلك يدقموي كايساميسو كاريس بربرينو يلا إن شاء الله تعالى وحن دونا إنه ساعة وحوله يسوف يسينو قارئ كأنه سدوها حنان حولها تخاطير كسو قلنا شبيه جامعة يسوي جامعة برعية شيخنا إنه هالكن أفر نفترض يدخل بينه shan ka mid ah dhaqaatiir ama kaws ama tababarayaasha xirfadda xoolaha oo degmooyinka ay saameyso gaar ahaan Harasheekh iyo Khaatumo iyo Xaaji Saalax iyo degmada Oodweyne inuu shantaa dhaqtar dawo la siiyo dawadaas oo ay kilkaas ay la wareegi doonaano dawada ayaguna ay ka faa'iidi doonaan kadibna dawo kale soo iibsan doonaan oo la kaabi doono. si kastaba ta dhismaha cusub ee lagu kordhiyay wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa wax badan ka tari doona baahidii dhinaca xanaanada xoolaha ee gobolka Daadmareed iyadoo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Somaliland uu ballan qaaday inuu keeni doono gaadiid u adeega wasaaradda xanaanada xoolaha. Cabdikariin Maxamed Jaamac shabakada caalamiga ah ee News.